سيدي حمش كبورها حمايو حمق عدادي حلاوادي معانتي أدقو ما يحسوس نيسا الشوضة يو عاشق أجيبا حنو وينيقو أبوري أنيقو حليسي حواي أدقو ما يحسوس نيسا سيدي حمش كبورها حمايو حمق عدادي حلاوادي fanaaniinta qaaliga ah ee martida waa soo dhaweynaa maasha Allah aqlire soo dhawaan leeyahay waa fanaan qaaliya waxaan jeclaan lahaa inaynu isu taagno showgiisana aynu soo buuxino si qurux badan marka ugu horeysa stiikarku soo dhaco fanaaniinta qaaliga ah nala jooga halkan aad baan wada salaamaya waxaan leeyahay iyo dhiijigeena la joogaba maftuux baan ka bilaabayaa deeqsan xaaji qamar suudaani aqliyare qurux wanaag iyo waxaan leenahay guul iyo gobonimo ishoodayo caashiq agiiba xanu weynigu abuure anigu xalaysi xawaaye adigu ma yaxasuusanaysaa runtii waa maalin qurux badan waa casuumad iyo martiqaad fanaankeena qaaliga maxamed biike uu sameeyay walaalkan aqliyare waxaan leenahay magaaladu waa magaaladaadii ku soo dhawo baan leenahay mar iyo laba iyo saddexba sidaad noo jeceshay baan ku jecelnahay maxamed cabdi biike isaguna aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxaa sidoo kale iyaguna ku sugan qada sharaftan fanaaniinta qamar suugaani maftuux cadceed iyo fanaanada deeqsan cabdinaasir macalin caydiid waxaa iyaduna kaalin muhiima ka qaadatay abaabulka isku dubaridka marwada fanaanka biike faadimo qurux wanaag oo iyadana aanu u mahadnaqayno aan idhaahdo DJ Maal ayaa isaguna ku sugan goobta oo isaguna la wadaagaya soo dhaweynta iyo farxadda fanaanka qaaliga ah aqliyare dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin taageerayaasha ku xidhan fanaanka dhawaan ayuu fanaanku barnaamijkeedu ku qaban doonaa magaalada Hargeysa waana shaacin doonaa haddii Allaha awood la idmo waana kaga bogan doontaan halka iyadoo fanaanka biikeena isaga laftiisu uu kala soo qayb qaadan doono barnaamijka waa mahadsantihiin dhammaantiin حسيلي جعلكينا سو حسيلي تشوف النقوح انت الى قبر ويا حلال بانكو اروسي حسيلي جعلكينا سو حسيلي marka hore waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogan iyo Soomaaliyeedba khaasatan reer Hargeysa waxaan ana hadalka muhiimadiisa waa la gabagabeeyay oo waa laga hadlay anna waxaan mar labaad insha Allah iclaaminayaa oo ku sii adkaynayaa taageerayaashiisa walaalkeen aqliyare inay insha Allah habeenkaas si fiican uga soo qayb galaan goobta iyo maxay hayday meesha ay ka dhici doonto dhawaan baan idin soo sheegaynaa gadaal baan idin ka soo sheegi doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa in program qurux badan uu dhici doono habeenka si qurux badan aynu uga soo qayb gali doono haddii Allah yiraahdo تشوف النقوح انت الى قبر ويا حلال بانكو اروسي بسم الله الرحمن الرحيم markooda waxa mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xigta waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalkay Maxamed Saciid Cabdi Biike oo maanta qada sharaf aad iyo aad u qurux badan u sameeyay fannaankeena aqliyare aqal maanta malihiin ku soo dhaw Hargeysa oo isagoo already waa reer Hargeysa noqday aqal ma sha Allah waxaan u sheegnaa dhamaan bulshooyinka taageerta fankiisa iyo bulshooyinka taageerta dhamaan fanka fanaaniinta idinka muuqda goobtan iyo qaar kale oo aan halkan inoo jooginba inuu aqliyare bisha September gudaheeda waliba labada usbuuc ee ugu horeeyay insha Allah
uu inoo qaban doono bandhig faneed loo dhan yahay oo aan Hargeysa cid u kala harin intii fanaan joogtay wixii faahfaahinay inta dheer iyo goobta uu ka dhacay iyo waqtiga sida ugu dhaqsaha badan la baan soo sheegaynaa insha Allah taala waxaan leenahay dadka insha Allah in yarna dhowra usbuucan gudihiisa dhagu diyaar ha ahaadaan Hargeysa maanta waxaanu ku qabanaa show kala dhaqaaqa oo waqti dheer ay ugu dambeysay dadweynaha reer Hargeysa show noocaas oo kala oo dhaca oo aan loo kala harin oo Hargeysa ka midaysan tahay insha Allah aad baan idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isku nimay maanta qadar sharaf inoo sameeyay walaalkeen Maxamed Biike oo ugu talagalay walaalkeen aqal yare waxaan u leenahay aan ku aqbalnay aniga iyo walaalahay kale meesha fadhiyaba ismada aad noo fadhiisay waan ku maasan tahay walaalkeen aqal yare waxaan leenahay ku soo dhaw dalkaaga hooyo aad baan ugu soo dhaweynaa gacmo furan ku soo dhaw السلام عليكم وإن سلام دمانتين وحن آد ugu faraxsanahay inaan la joogo walaaladay qaas ahaan walaalkay Maxamed Saciid Biike oo aan aad ugu faraxsanahay qada sharafta martiqaadka oo noo sameeyay waxaan leeyahay taankii walaal macaan aad baad mahadsantiin adigii marwadaadaba waxaan kala mahad celinayaa fanaaniinta garbahayga fadhiya walaaladay oo halkan aan ku soo koobi karin farxadayda heer Somaliland oo dhan waxaan leeyahay insha Allah mar dhow soo bixi doona flyerkii show aad u qurux badan oo Hargeysa oo dhan isku aragto Somaliland oo dhan isku aragto ma samaysan doona haduu Ilaahay yiraahdo guuliyo gobonimo de farxadayda ma soo koobi karo maanta dhan hadaan yiraahdana de mahadsanidin waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay de hadalkayga ka dareemi kartaan aad baad mahadsantiin dhamaantiin baan insha Allah sidaad ii jeceshiin insha Allah